Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkani ciyaaraha maanta waxaynu soo qaadan doonaa kooxaha Premier League ayay ku aadi doonaan wareega ugu horeeya ee sideedda league phase-ka loo yaqaano sidoo kale Manchester City iyo Crystal Palace ayaynu soo qaadan doonaa Julian Alvarez iyo sidoo kale arrinta Atletico Madrid iyo guud ahaan kubadda cagta haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir dad hore nolol joog like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay. Aan ku bilownay isku aadka Champions League ayaa la sameeyay 29 kooxood ayaa xil ciyaareedkii hore dhammaadkiisa si toos ah ugu soo baxay Champions League halka 7 boos oo kale la go'aamiyay isla reebka qaabka cusub ee tartanka oo hadda galay xil ciyaareedkii saddexaad koox kasta waxay ciyaareysaa 8 kooxood oo kala duwan 2 kooxood oo ka socota Board 1 2 kooxood oo ka socota Board 2 2 kooxood oo ka socota Board 3 iyo 2 kooxood oo ka socota Board 4 koox kasta waxay ciyaareysaa 4 kulan oo gurigeeda ah iyo 4 kulan oo ay marti u tahay kooxda kale isla reebka waxaa sameeyay supercomputer kaasoo si otomaatig ah u dooranaya 8 kooxood ee koox kasta ay la ciyaareyso marka aynu soo qaadano kooxaha Premier League ayay sidoo kale sida ay u aadeen Arsenal oo xil ciyaareedkii hore gaartay finalka Champions League waxay la ciyaari doontaan Real Madrid oo gurigeeda Emirates ay kula ciyaari doontaa Bayern Munich ayay marti u aadi doontaa oo Allianz Arena ay aadi doontaa Borussia Dortmund ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa kulanka saddexaad Real Betis ayay kulanka afraad marti ahaan u aadi doontaa Spain Lille ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Emirates Napoli ayay marti u noqon doontaa oo Serie A ayay aadi doontaa kooxda Sabas oo hadda ku cusub Champions League ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Slavia Prague kooxda lagu magacaabo ayay marti u noqon doontaa oo kulanka ugu dambeeya Arsenal waxay doonaysaa inay ku dhameysto 8 boos ee ugu sareysa taasoo si toos ah loogu gudbayo wareega 16 Aston Villa waxay la ciyaari doontaa Barcelona oo ay aadi doonto Camp Nou oo ay marti u noqon doonto PSG ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Borussia Dortmund ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Club Brugge ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Fenerbahce ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Galatasaray ayay marti u noqonaysaa Viking ayay marti u noqonaysaa kooxda la yiraahdo Slavia Prague ayay marti u noqonaysaa Liverpool waxay wajahaysaa Inter Milan kulankeeda ugu horeysa waxayna aadi doontaa San Siro Atletico Madrid ayay gurigeeda Anfield kula ciyaari doontaa Porto ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Club Brugge ayay marti u noqonaysaa Villarreal ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Fenerbahce ayay marti u noqonaysaa Lens ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa kooxda lagu magacaabo Lask ayay marti u noqonaysaa Liverpool ayaa kulamo adag la ciyaari doonta Inter Milan iyo Atletico Madrid Manchester City iyadana waxay la ciyaari doontaa PSG ayay gurigeeda ay la ciyaari doontaa Barcelona ayay marti u noqonaysaa Sporting Lisbon ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Porto ayay marti u noqonaysaa Napoli ayay gurigeeda ku ciyaari doontaa RB Leipzig ayay marti u noqonaysaa kooxda lagu magacaabo Arsenal ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Lens ayay marti u noqonaysaa Manchester United marka oo iyadana ku cusub sanadkan Champions League oo sanadihii la soo dhaafay ayna kasoo qayb galin kulankooda ugu horeeya Atletico Madrid ayay u noqon doontaa marti Bayern Munich ayay gurigeeda ay ku soo dhaweyd doontaa Roma ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Sporting Lisbon ayay marti u noqonaysaa RB Leipzig ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Villarreal ayay marti u noqonaysaa kooxda Sabas la yiraahdo ayay gurigeeda kula ciyaari doontaa Como ayay marti u noqonaysaa waxaa jira 4 kooxood oo cusub markii ugu horeysay ay kasoo qayb galaya Champions League Como oo Talyaani ah waxaa tababare u ah Cesc Fabregas Lask oo Austria ka dhisan Viking oo Norway ka dhisan Sabah oo kooxda horyaalka Azerbaijan ka dhisan oo la aasaasay 2017 waxaa kaloo xusud mudan in Yaya Toure oo hore ugu tirsanaa Manchester City uu noqonayo tababaraha Afrikaanka ee ugu horeeya ee koox u horseeda Champions League isagoo kasoo gudbay heerka ugu weyn ee sarreebka dhanka kale caawa waxaa ciyaari doona Manchester City oo kulan ka tirsan horyaalka Premier League Manchester City oo away u noqon doonta kooxda ka dhisan London ee Crystal Palace kooxda Crystal Palace kulankii hore waxay 2-0 guuldaro ay kala soo kulantay Everton oo ay marti u ahayd kulankii horena Manchester City waxay si dirqi ah 2 gool iyo gool uga adkaatay kooxda Bournemouth wax iyadoo lagu xusuusto xidiga lagu magacaabo Ryan Cherki kaasoo kursiga keedka kasoo kacay kadibna caawiye 2 gool caawiyay sidoo kale Cherki waxa lagu xasuustaa kulankiisii ugu horeeyay ama seasonkiisii ugu horeeyay ee xil ciyaareedka Premier League uu ciyaara Manchester City inuu dhaliyay 10 gool iyo 15 caawin wax dhib ah male ama wax weyn male in kursiga geedka uu kasoo kaco 2 gool caawiyo sidoo kale tababaraha Crystal Palace ee hadda cusub kana yimid dhanka ay sidoo kale Lille
wuxuu si weyn u ammaanay ninka lagu magacaabo Ryan Sherk isagoo ku tilmaamay ciyaaryahan aan caadi ahayn oo uusan wax ku tilmaamo uusan aqoon. Sidoo kale Sherk wuxuu yiri waa ciyaaryahan aan caadi ahayn marka kubad loo dhiibo difaacyada si walba ayuu qaldi karaa. Kooxiisana wuxuu uga digay inay caawa iska ilaaliyaan Ryan Sherk oo ah mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee ka ciyaara qadka dhexe ee horyaalka Premier League. Sidoo kale kulankii la soo dhaafay tababaraha Manchester City Enzo Maresca wuxuu qadka dhexe ku soo bilaabay Marc Guehi kaasoo taageerayaasha inta badan kubadda cagta ka yaabsay in Marc Guehi si fiican ula qabsaday difaaca dhexe ee Manchester City oo hadda uu ka ciyaarsiiyo qadka dhexe, taasi oo noqotay mid aan taageerayaasha aad ula yaabaan. Sidoo kale shirkii uu qabtay Enzo Maresca ka hor kulanka Crystal Palace wuxuu ku sheegay in Ayoub Boudu uu kulankan ciyaaryahanka reer Morocco 18 jirka Manchester City dhawaan ay Lille kala soo wareegtay lacag ku dhow 100 milyan oo kulankan uu imaanayo isagoo aanu sheegin inuu kusoo bilaabay in kale. Haddii uu kusoo bilaabay Ayoub wuxuu Marc Guehi loo celin karaa booskiisii hore oo ahaa difaaca dhexe. Haddii aan lagu soo bilaabin mar kale waxaa la filayaa in Marc Guehi ay ku soo bilaabaan. Sidoo kale Crystal Palace waxaa xusid mudan inay Manchester City ay kaga adkaatay koobka FA Cup-ka sanadka markuu ahaa 2025 markaasoo ay 1-0 uga adkaatay. Dhanka kalena Spain aan aadnay arrinta Julian Alvarez meer xasaasi ayay maraysaa kadib shalayto markuu hadlay ninka hogaamiye Barcelona ee Joan Laporte isagoo yiri waan xusmeynaynaa kooxda kubadda cagta Atletico Madrid haddii Julian Alvarez uu joogo suuqa ama uu saaran yahay suuqa anagu waxaan diyaar u nahay lacag kasta oo Atletico Madrid ku dalbato Julian Alvarez, balse gaasimaha ciyaaraha ee Atletico Madrid ayaa u jawaabay Barcelona isagoo sheegay in marnaba aysan Atletico Madrid ciyaaryahankeeda Julian Alvarez ay ka gadi doonin kooxda kubadda cagta Barcelona, isagoo sheegay duruuf kasta oo Atletico ku jirto Alvarez kama gadi doonto kooxda kubadda cagta Barcelona, isagoo sheegay in kooxda ay ku soo wajahayeen kulamo Champions League ah sidoo kale ay ciyaarayso horyaalka La Liga. Uu sheegay in Julian Alvarez uu yahay ciyaaryahan muhiim u ah Atletico Madrid isagoo yiri koox kasta waxay haystaa ciyaaryahan muhiim u ah, anagana ciyaaryahankeena waa Julian Alvarez wuxuu dhameysan doonaa qadaraaskiisa uu kula jiro kooxda kubadda cagta Atletico Madrid mana ka gadi doono kooxda kubadda cagta Barcelona. Sidoo kale waxaa xusid mudan in uu hadalkiisa uu sii raaciyay agaasimaha ciyaaraha ee Atletico Madrid anigoo kubadda cagta waxaan ku jiraa 3 sano, go'aankan waa mid adag oo aan ku doonayno in Atletico Madrid aysan wax gorgortan ah la gelin kooxda kubadda cagta Barcelona arrinka ku aadan Julian Alvarez. Sidoo kale wuxuu sheegay in Julian Alvarez naftirkiisa uu wareersan yahay